wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa baaritaan ku sameysay 103 qof oo laga baaray caabuqa COVID-19 24 saacadood u dambeeyay waxaana si rasmi ah looga helay 15 qof xanuunka neefabaarka COVID-19 waxa sidaas warbaahinta uu sheegay madaxa xiriirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Xuseen Maxamed Yuusuf cudurka laga baaray 103 qof waxaana cudurka laga helay 15 kamid ah 103 qof intii wadanka laga bilaabo maalintii baaritaankii ugu horeysay laga bilaabay ilaa maanta waxa cudurka laga baaray 2897 qof haddaba haddii aan ku noqdo 15 qof ee laga helay 24 saacadood oo u dambeeyay cudurkan 12 waa rag 3 waa dumar waxa ay dhalashadoodu kala tahay 8 waa reer Somaliland 7 waa ajnabi meelaha ay dadkaasi kala joogaan 8 waa awdal gobolka awdal bay joogaan 7 waxay joogaan Berbera gobolka Saaxil haddaba 7dan Saaxil waxa weeye 7da ajnabiga ah ee cudurka laga helay waxayna ka mid yihiin shaqaalaha dekada ka shaqeeya ee ajnabiga da'dooda haddii aan kala qaadno dadkan 2 waa 10 jir ilaa 19 jir 4 waa 20 jir ilaa 29 jir 5 waa 30 jir ilaa 39 jir 3 waxa weeye 40 ilaa 49 midna waxa weeye 80 ilaa 89 waxa weeye 15 qof sidaa dhimashada waxa dhintay hal qof oo 7 jir oo u dhintay cudurka ilaa hadda lagu xariiqiyay marka taasi waxay ka dhigaysaa tiradeennii guud ee dhimashada cudurkan oo shalay 27 ahayd tani maanta 28 baa qofkan ku soo biira ka dhigaya haddii aynu eegno tirada guud ee dadka cudurka laga helay ilaa maanta iyadoo la taskareeyay 2827 qof ayaa waxa cudurka laga helay isu geyn 650 qof goobaha dadka lagu daweeyo 7 qof ayaa bogsaday oo laga saaray goobaha wadanka laga soo galo ee ah sida Togo Jaale Tukaraq iyo meelo Lawiyacdo iyo meelaha la midka ah waxa weeye 1610 weeye dadka screeningka loogu sameeyay la eegay bal inay xumadahayso iyo inaan xumadahayn ee wadanka soo galay tirada guud ee la soo hadashay call centerku waxa weeye 7651 dadka maanta meelahan karantiinka ku jira tiradooduna waa 15 qof waa Xamsad Bare telefishinka Star Hargeysa